aan cid kale idiin dhaxaynin hooyadaa waxaad siinaysa sii farxadda qarsoon baa u wanaagsan ehelkeedii baa daawanaya dadkeedii baa daawanaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن صاحبة قيمها بدن اكو حنا channelka يوسف حايبرو official meel walba daafaca caalamka ka joogtaan waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak ومر kale iyo muuqaal cusub dabcan xilli kasto idin tahay wanaagsan waynu kala waqti duwanahay oo runtii wax laga yaabaa in qaarna hadda habeen tahay qaarna ay maalin u tahay sida anaga oo kale waa maasantiin saaxiibada hore ila joogay waa maasantiin fadlan channelka like muuqaalka la gareeya u share gareeya asxaabtiina saaxiibada cusubna xaleena soo dhawaada fadlan channelka subscribe noo saar muuqaalka la gareeya u share gareeya asxaabtaada gambaleelkana furo si muuqaal walba oo aanu halka soo gelina uu ku soo gaaro maanta dabcan waa keligii waa markii ugu horeysa laga yaabaa in anigu keligii halkan idin kala hadlo saaxiibada hore igu xidhnaana uga mahad celinayaa la jaanqaadka iyo la socodka muuqaalada halkan aanu soo gelino mar kale galab wanaagsan oo aniga ii tahay idinkana waqti kasto idin tahay oo wanaagsan dabcan galabta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrimood oo runtii waqtiyada soonka marka lagu jiro Soomaalidu ay aad ugu badan tahay xaqiiqatan marka dhinac laga eego waa wax wanaagsan haddana marka dhinac loo eego dhinaca kale laga eego waxa laga yaabaa inaanay habboonayn sidii dadka Soomaaliyeed u isticmaalaan arrinkaas aan rabaa inaan dul istaago waxa dhacda inta badan dadkeena Soomaaliyeed waxay sameeyaan barnaamij la yiraahdo afuri walaalka oo barnaamij inta aad u qiimo badan waxa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo walaalaheena oo aan afur haysan laakiin u baahan in la caawiyo mar walba ama waqtiga Ramadaan taan noqoto ama waqti aan Ramadaan lagu jirin ha noqoto laakiin waxyaalaha inta badan aanan jeclaysan markaan muuqaalada daawanayo afur walaalka iyo sidoo kale maxaan ku raadayay dadkan muuqaal intay soo sameeyaan qof ku oranaya waxaan rabaa inaad afur ay siiso sababtoo ma haysto waxaan ku afuro way ka farxinayaan waa run oo qofkaas wuxuu siinayaa afuro ama lacag buu siinayaa dabcan ugu talagalay laakiin waxyaalaha mushkiladda iyo dhibka ku keenaya waxa weeye qofka walaalkeena sooman aan afurada haysan ee afurada loo geeniyo in muuqaal laga duubo runtii arrinkaasi aad iyo aad buu runtii u foolxun yahay waxaan rabnaa inaan dadkeena Soomaaliyeed caawino bilaa kamarad la'aan waxaan rabnaa dadka maadaama uusan qof xanuunsanaya yahay qof xanuunsanaya oo aad muuqaal ka duubtid oo aad dadka Soomaaliyeed u bandhigto waa macquul laakiin qof walaalkaaya oo aad rabto inaad wax siiso ama aad afuro siiso ama aad lacag siiso ama aad adigu hantiba kala siisid ilama habboona in muuqaal laga duubo siiba dadka qof intay u tagaan waayeela ama hooya ama aabba ku oranaya waxaan rabaa inaad nasiisid waxaan ku afurno si ay bedelkeeda iyagu markaa wax xusayaan waa run waa arrin aad u wanaagsan laakiin waxa ka habboon adigoo aan muuqaal ka duubin inaad siiso waxaad siinayso gaarsiisiin wixii dadku ku soo dhiibeen mid kale dadka Soomaaliyeed badan way ka fikiraan waxay yiraahdaan marka lacagna loo soo diro waa inaanu muuqaal duubno si dadkii Soomaaliyeed ee muxsiniinta hay lacagta la soo baxay u arkaan inaan wixii dadkii aan gaarsiinin dadka Soomaaliyeed ee sadaqada la baxayna mid baan xasuusanaya sadaqada midda ugu wanaagsan waa midda la qariyo way waxa habboon inaad qarsato sadaqada qofkan walaalka islaamka ee u dhiibaysay meesha aad joogto maadaama meel dheer tahay aad isleedahay dadkii Soomaaliyeed ee tabaaleysna ha caawiyo oo wixii aad adigu ugu dirtay ha gaarsiiyo waa inaad aaminto isagana saasaa wanaag ugu jira adigana saasaa sadaqadaada ansax ku noqonaysa sadaqadii loogu talagalay ku noqonaysa dadka Soomaaliyeedna waxa laga yaabaa inay dadkan inta badan duruuf u geynayso inay muuqaalka duubaan si dadkaasi ay runtii shaki uga baxo marka dadka Soomaaliyeed ee lacagta baxsanaya sadaqada ee rabayna ama walaalahood lagu afriyo ama walaalahood si kale loogu qabto oo caawimada ah oo sadaqada waxaa la rabaa inaysan iyaguna samaynin
oo runtii ay ku kalsoonaadaan dadkay u dhiibeen iyo lacagahaasi. ugu yaraan muuqaal guuduub, laakiin person qof in looga duubo dabcan waxaan usoo jeedinayaa dadka Soomaaliyeed ee dadka caawinaya. Shaqo wanaagsan bay hayaan runtii, khayr la siiyo, laakiin waxaan jeclaysan lahaa in intaa lagu daro oo laga daayo muuqaalka. arrinka labaad aan rabaa inaan ka hadlo waxa weeye dabcan waqtiyada xilliga maxaan ku rahdaa Ramadaanta lagu jiro, dadku inta badan waxay soo duubaan muuqaalo cuntooyin kala duwan, afurooyinkay samaysteen, maxaan ku rahdaaye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, goobtii ay ku afurayeen, waxyaalihii ay diyaariyeen. dabcan aniga aragtidayda ma habooneen muuqaalka la soo duubo, sababtoo ah waxaa jira muuqaal horena oo halkan waanu kaga hadalnay. waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo sooman oo walaalaheena oo aan haysan nimcadaadu aad haysato. haddaad gaadhsiin karto deriskaaga, xaq buu ku leeyahay waa inaad gaadhsiiso, ka warqabto deriska yaa afuray, yaan afurinin, yaa wax haysta, yaan wax haysan, waa muhiim. laakiin inaad mid kaa fog aad muuqaal u duubto oo tiraahdo maanta cuntadan aan ku afuraya, cunto heblaayaan samaystay, bilaa calayk wax fiican maaha. marka siiba haweenka Soomaalida waan kula darbiyaa inay iska daayaan muuqaalka cuntooyinka ay sameynayaan ay soo duubayaan, ma fiicna. waxaa laga yaabaa adigu haddaad haysato walaalkaa baan haysan, runtii haddaad adigu xilliga afurka ku faraxsantahay inaad cunto fiican cunto, cabitaano fiican cabto, waxaa laga yaabaa qof walaalkaayoo sooman oo sidaadoo kale ilaahay dartii u afxidhnaa inuusan awoodin, oo laga yaaba inuu biyo iyo timir iyo waxyaalo noocaas oo haysto. laakiin adiguna waxyaalo ka badan baad haysataa. waxaa habboon inaanad walaalkaaga muslimkaa ee Soomaaliyeed aanad adiguna runtii dhibaato ku noqonin, mana habboona muuqaaladan la duubo. dadka Soomaaliyeedna dabcan gaar ahaan weliba haweenka waan kula daarmayaa inay iska daayaan oo joojiyaan muuqaalada ay soo duubayaan, ma habboona. tan kalena waa inaynu xoogga saarno sidii looga hortagi lahaa. sadaqadu waxay ku wanaagsantahay in la qariyo. kadaa sadaqada aad kamarada la daba socoto runtii wax wanaagsan maaha. dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku maqan, inta badan dadka lacagaha soo bixi waa dadka qurbaha ku maqan oo wadamada caalamka ka shaqaystay jooga. dadkeena Soomaaliya joogaana way bixiyaan, laakiin dadka qurbaha jooga ugu badan dadka lacagaha soo dira. marka afur walaalka oo kale la sameynayo, dadka qurbaha jooga u badan. dadka qurbuhu inta badan dadka Soomaaliya jooga waxay ka cawdaan, waxayna oran doonaan lacagtaan idin soo dirnay xagaa ku bixiseen. ka dadkaana waxaan oran lahaa waxay idin wanaagsan inay idin qarisaan wixii aad bixinayseen sadaqadaha, si idinkana wanaag idinku noqoto. runtii sadaqa wanaagsan oo ansaxana oo sidii layna faray ah, sadaqada qarsoon waxaa lagu yidhi yaysan ogaanin gacantaada ku bixinayso sadaqo, yaysan gacantaada kala ogaanin. inaguna maanta waa kamaradayna ku duubeynaaba muuqaal waa lasoo duubayaa, edit baa la sameynayaa, waa la jarjarayaa, waa la hagaajinayaa, waa deetana dadka loo baahinayaa. wax fiican ma aha. siiba waa yeelka oo inta badan hadda muuqaal dhowr muuqaalan daawaday, dad waa yeela qof u tegaya wuxuu ka horanayaa si waxaan ku afuro, waa hooyo ama waa aabe. kabacdi muuqaal buu markaa ka duubayaa, hooyadaasoo duruufaysan tahay. waxaa laga yaabaa wiilka u tegaya nasiibka u yeeshay inuu kamarad helo, wax barto, aqoon, lacag soo ururin karo, ama isagoo bixin karo. waxaa laga yaabaa in wiil lamida islaanta uu tegaya ee hooyaday ay dhashay, laakiin aan ilaahay fursad u siinin inta inankan iyada u imanayaa uu ilaahay fursad u siiyey. waxaa laga yaabaa inankeeda ama inuu xanuunsan yahay, waxaa laga yaabaa inankeeda inaan waxba baranin, ama waxaa dhici karta inuu dhintayba oo hooyadan aad u tegaysaa bilaa awlaad tahay. deetana inaad muuqaal la daba istaagto, muuqaal ka duubto oo tiraadid hooyo waxaan ku afuro may siin karaysaa, dabadeetana ay kuula hadasho sidee runtii qalbiga iyo caloosha iyo beerkuba ku gubanayo. runtii wax wanaagsan maaha. at least haddaad hooyadaa ka farxinayso adigoo adiga iyo ilaahay aan cid kale idiin dhaxaynin, hooyadaa waxaad siinaysa si farxadda qarsoon baa u wanaagsan. ehelkeedii baa daawanaya, dadkeedii baa daawanaya. beri ka maalin mustaqbalka hooyada ama aabahaad caawinaysaa uu isbedelaya. muuqaalkani social media ugu jiraya walaal, ka daa. waxaad siinaysa walaalkaa intaad u qariso si
adigana saasaa khayr kugu jira, isagana saasaa wanaag iyo runtii dignitigiisii ku jira, adigana saasaad laga yaabaa inaad ku guulaysato idanka ilaahay. waxaan rabaa marka walaalahayga Soomaaliyeed, dabcan hadalka waa dheereeyaan filayaa, waa mahadsantihiin. intaa waxaan ugu talagalay maanta inaan dadka Soomaaliyeed la wadaago, oo runtii mar walba waxaa muhiim ah inaynu isfarno wixii wanaagsan. waxaan rajeynayaa inuu ilaahay acmaasha bisha Ramadaan sameynayno runtii iyo cibaadada inuu ilaahay naga aqbalo. runtii bishan ilaahay waa soo gaarsiiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin, ku dhameystay inuu ilaahay naga dhigo bishan bisheeda sanadka soo socda haddii ilaahay nafteena daayina. waxaan rajeynayaa in ilaahay uu guud ahaan ummadda Soomaaliyeed nabadgeliyo, bashbash iyo barwaaqo ku gaarsiiyo idanka ilaahay, iyo dalkeena nabada, dalkeena barwaaqo ah. waxaan rajeynayaa insha Allah biidnaakum inagoo caafimaad qabna. waxaan u duceynayaa dadka xanuunsan isbitaalada ku jira ee aan fursad u helinin inay soomaan bisha Ramadaan, inuu ilaahay caafimaad siiyo oo uu cudurka caafimaad ugu bedelo. inteena caafimaadka qabta ee bisha Ramadaan ilaahay fursad u siiyo inay nabadgeliyo, farxad, caafimaad ku soomaana inuu ilaahay inoo siyaadiyo. waa mahadsantihiin. waxaan kaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.